أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق. السلام عليكم. maanta waxaan ka hadlaynaa xanuunka gaaska, cuntooyinka lagu daaweeyo ama u roon qofka gaaska qaba. Gaaska waa xanuun ay Soomaalidu inta badan sheegato, wuxuuna ku dhacaa caloosha, waxaana keena daawooyinka qaar ka mid ah sida aspirinka ama antibiyootiga. Aashitada caloosha oo badata oo ay keento gaajo muddo dheer haysa. Xanuunka aashitada caloosha oo batay waxaa kale oo keena gaaska sharaabka alkoolada leh ama cuntooyinka dufanka badan ama dhanaanka leh ama la khamiiriyey, iyo weliba sigaar cabida iyo isticmaalka buuriga. Daawadayaal, qofka xanuunka gaaska qaba wuxuu dareemaa calaamado ay ka mid yihiin calool xanuun, bog xanuun, weliba bidixda iyo midigta uu ka dareemo. Waxyaalaha kale uu qofku dareemi karo waxaa ka mid ah sida dibiro ama daaco, marka qaarkoodna muudayo caloosha inaa mudciya lagaga midmidayo ama qadxo. Sidaa daraadeedna qofku markasta uu daaco ama markasta ay neef ka timaado ayuu nafisayaa. Waxyaalaha kale qofka gaaska qaba uu dareemi karo waxaa ka mid ah kor cuncun iyo cago olol iyo gacmaha calcalaha. Sidoo kale waxyaalaha uu dareemi karo waxaa ka mid ah af qalayl, carabka oo yeesha nabaro, waana calaamad ay ka cawdaan dadka muddada dheer uu hayay gaasku. Calaamadaha kale lagu garto waxaa ka mid ah qofka uu hurdadu ka qasan tahay, sida uu sasayo, uu soo boodayo, iyo uu dareemayo hurdada oo hurdo fiican una seexanayn, gaar ahaan hadduu kaa kiciyo qof hurdada. Calaamadaha kale uu isku arki karo waxaa ka mid ah qofku wadna garaac uu moodayo inuu hayo wadna qabad. Sidaa awgeed wuxuu gaasku leeyahay wadna garaac iyo cadaadis feedhaha ah, maadaama hawada isku xidhay caloosha ay cadaadin karto feedhaha. Calaamadaha kale uu isku arki karo qofku waxaa ka mid ah laab jeex, sida markuu cuntada cuno kadib inay kusoo gudoomaan biyo dhanaan ama uu ka dareemayo afka iyo carabkaba oo qadhaadh. Waxyaalaha kale lagu garto waxaa ka mid ah inuu qofku dareemo warwareer marka uu istaagayo ama uu jiifka uu kasoo fadhiisto, inuu dareemo warwareer. Taas macnaheedu maaha inay ku hayso dhiig yaraan, waa calaamadaha gaaska. Haddaba qofku wuxuu dareemi karaa calaamadaha mid ama laba ka mid ah. Hadduu qofku gaas qabo waa inuu la xiriiraa dhakhtar si loo daaweeyo loona ogaado gaasku qabo nooca uu yahay. Sidaa daraadeed waxay ku xidhan tahay qofka gaaska qaba calaamadahan soo sheegnay sida uu dareemayo iyo halka uu ka dareemayo caloosha. Hadduu qofka u daran tahay gaajada ama dheregtu iyo xanuunka hadduu ku eegyahay hal meel ah, ama uu caloosha ku baahsan yahay, ama uu ka qabanayo halka dhabar ku aadan ee boga ah, warbixintaana wax ku dhisi kara ama wax ku ogaan karo dhakhtar u leh aqoon calaamadaha gaaska. Haddaad calaamadaha isku aragtay, la xiriir dhakhtar. Xanuunka gaaska badan waxaa keenta bakteeriya loo yaqaano H. pylori. Sidaa daraadeedna qofka laga helo bakteeriyadan waa in lagu daraa daawada gaaska, dawo antibiyootiga si ay u disho bakteeriyadan. Soo dhawow talooyinka dhakhtareed ee loogu talagalay qofka gaaska qaba. Talooyinka dhakhtarka waxaa ka mid ah daawada sida lagu faray inaad qaadatid sharaabka cad iyo cuntooyinka aan dhadhanka lahayn sida kuwa la dubay ilaa aad ka bogsanaysid. Dhinaca kalena ka fogow cuntada suugada badan, kuwa saliidda leh, canjeelada iyo waxaa la khamiiriyey, dhandhanaanka, basbaaska iyo wixii qasacadaysan iyo wixii la shiilay oo idil. Geesta si tartiiba ugu soo laabo cuntadaadii oo waxaad cuntaa xaddi yar markiiba. Gaajada iyo dheregtiba adiga way kugu daran yihiin, xaddi yar oo cuntaa cun. 3 waqti ee la sheegay kuma anfacayaan adiga haddaad qabtid xanuunka gaaska. Waxaa rabaa inaad cunto xilligaad jiifsanaysa 4 saacadood ama 3 saacadood ka hor. Iska ilaali calooshaada buuxda inaad ku seexatid, taas waa halis. Waa haddaad qabto xanuunka gaaska. Gaajo inaad ku seexatin iyaduna waa halis. Haddaad gaajo dareentid xilliga hurdada ka hor, waxaad cabtaa koob caana oo dhay ah oo wax dhanaana aan lahayn. Caanuhu waxay yareeyaan aashitada caloosha, waana daawo aad u fiican. Geesta kalena gaasku markuu halis noqdo, qofku uu nabar yeesho, wuxuu matagi karaa dhiig, wuxuu dhigi karaa saxaro dhiig leh, taas waa halis. Inkastoo dadka qaar aaminsan yihiin markuu qofku dhiigga matago inuu caafimaadayo,
taasna sax maaha oo waa halis. Waxaa dhici karta in dhiig caloosha xidid ka furmay oo uu nabarka qodo, taasna uu qofku u dhinto dhiig bax. Fadlan markay halkaa marayso si degdeg ah u tag dhakhtar. Haddaad isku aragtid saxarada adoo dhiig yeelatay, mana aha dhiig cas inaad ku arki doontid, wayna saxaradaadu way madoobaan doontaa. Waxaad ku soo dhawaataan cuntooyinka dabiiciga ah u wanaagsan xanuunka gaaska. Xanuunka gaaska wuxuu noqon karaa acid caloosha oo ku badata, waxaana jira cuntooyin dabiici ah oo yareeya acid caloosha. Waxaa ka mid ah cuntooyinka dabiiciga ah malabka, maxaa yeelay malabku waa daawo dabiici ah. Waxaa lagula taliyaa qofka xanuunka gaaska qaba subaxda hore intaan waxba cunin inuu malqacad malaba ku daro sufur biyo, kadibna ku walaaqo uu sidaana ku cabo. Badanaa gaaska ka dhasha stresska ama bog xanuunka dadku badanaa way kaga ladnaadaan malabka. Waxaa aad u fiican inaad iska hubisi malabku inuu yahay malab saafi ah. Hadduuna saafi ahayn waad ku sii xanuunsanaysaa. Geesta kalena waxaa u fiican ayaa la yidhaha burka shoofaanka loo yaqaano, oo burkaas oo ay subaxdii ku quracan karaan dadka xanuunka gaaska qaba, waana lagu dhirgaa acid calooshana wuu nuugaa. Waxaa kaloo ka mid ah sinjibiisha qoyan, iyaduna waxay yareysaa qofka inuu gaaska ayay ka yareysaa, sida laabjeexanka biyo kulul qofka inay kusoo rogmadaan ayay ka ilaalisaa oo way u fiican tahay calooshana. Waxyaalaha kale wanaagsan qofka gaastirida qaba geedka dacarta, waxaana lagu daaweeyaa gaastirida ka nabarka ah ayaa lagu daaweeyaa inuu raystana diida. Haddana waxaa jira shirkado u sameeya qaab daaweyn ah. Haddaba ku dadaal inaad si toos u isticmaalin geedka dacarta, inaad raadsato isagoo oo la sifeeyey. Waxaana lagu iibiyaa sida farmashiyaasha ama dukaamada waaweyn, wuxuuna sifeeyaa caloosha. Geesta kalena sida saladhka ama qudaarta, qofka basada isma arkaan calool fadhi iyo gaasba. Qofka gaaska qaba waxa kale oo roon wax ka mid ah caanaha, sida kuwa subagga laga saaray oo la qaboojiyey, waxayna yareeyaan acid caloosha. Waxaana muhiim ah inayna caanahaas ahayn suusac ama fadhi, inay ahaadaan dhay fresh ama caanaha qasacyada ku jira. Waxaa kaloo ka mid ah cuntooyinka aadka ugu wanaagsan sida shaaha cagaaran. Shaaha cagaaran oo la soo koobi karin faa'iidada uu leeyahay. Qofka gaaska qaba shaaha cagaaran ayaa aad iyo aad ugu roon. Waxaa kaloo u roon qofka gaaska qaba babayga maxaa yeelay caloosha wuu socodsiiyaa oo wuu dhaqaajiyaa, wuxuuna wanaajiyaa dheefshiidka caloosha, wuxuuna yareeyaa acid caloosha. Laakiin liin dhanaan iyo sonkor ha ku darin. Waxyaabaha gaasta u roon halkan laguma soo koobi karo. Dadka ayaa kala duwan gaasta qaba, sida qaarna inay ku kicinayaan, qaarna ay kaga ladnaanayaan, sida muuska, timirta, liinta, waxyaalahaas oo dhan. Qaarna waa ku kiciyaan, qaarna waa kaga ladnaadaan gaastirida. Waxaa la doonayaa geeska kale inaad ka fogaatid sida xabxabka, cabitaanada khamiirsan sida canjeelada, sida kuwa ananaaska inaad ka fogaatid ayaa la doonayaa. Intaa ayaan kusoo koobaynaa.